isqorkan siyaasadeed oo ka soo maaxatay qof Soomaaliyeed oo magac weyn ku leh siyaasadda Soomaaliya si wacan loo qoray kooban oo si cad u muujinaya waayo aragnimadiisa waxaana lagu magacaabaa buug marxalad kala guur oo adag ee dalka Soomaaliya waa sheeko qofeed oo muujinaysa dhabaradayd mabda aan leexleexad lahayn buugani waxa uu ka sheekeynayaa taariikhda madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waqtiyadii kala duwanaa ee Soomaaliya ka soo qabtay xilalka kala duwan isagoona si rasmi ah uga faaloonaya wax qabadkii muddooyinkaasi u hirgalay haddaba waa kuma Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas Somali American dhaqaalayahan macallin jaamacadeed iyo siyaasi madaxa xukuumadda federaalka Soomaaliya June 2011 October 2012 xildhibaan muddo kooban ee baarlamaanka Soomaaliya madaxweynaha dawladda Puntland 2014-2019 buugga lagu magacaabo marxalad kala guur ee dalka Soomaaliya kana warramaya taariikhda madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxa uu ka kooban yahay 210 baal waxaadna ka heli kartaa mareegaha kala Sanaag Post Puntland Post iyo Sahan Online iyo sidoo kale barta ay ku leeyihiin baraha bulshada dhamaantood mareegahaasi kala soco xogo dheeraad oo ku saabsan wax qabadka madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas xafiiska warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka madaxtooyada dawladda Puntland